ciidamadii militariga Soomaaliya ee dhawaan qabsaday magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu eedeeyay inay kufsi u geysteen 2 dumar ah oo midii 13 sano jir ahayd midda kalena la sheegay inay xaamil ahayd. waxa ay warar heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ee sheegayaan in 7 bishan gabdhahan lagu kufsaday magaalada waxaana ilaa 7 bisha ilaa hadda kufsigaas markuu dhacay kadib lagu dabiibay isbitaal ku yaala magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaana la sheegay in gabadha xaaladeeda oo liidata awgeed maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in falkaas kufsiga ah dhowr askari loo soo qabtay. gudoomiye hore ee degmada Marka Xasan Cumar Macallim ayaa keenan u sheegay xaaladii kufsiga ahayd ee ka dhacay Jannaale. waa mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha kulmiina waa salaamahaya. dhacdo aad iyo aad u fool xun. waxaa dhib loo geystay 2 gabar oo mid ay tahay 13 jir. waxaa dhibkaa geystay ciidamada xoogga dalka. annagu ciidamada oo dhan ammaana waxayna ma xuma, ciidamadana ma xuma, hogaankana ma xuma. laakiin shakhsiyaad 2 iyo 3 ah in magaca ciidamada ay ku dheelaan, annagoo dhan sumcadeeyay ay ku dheelaan oo aad iyo aad ugu xunnahay. haye marka 7 bishaan ay ahayd waa la soo qaaday magaalo madaxda markaa la keenay. marka la keenan wax maamul gobol ama degmo soo booqday ma jiro. wax u yimid malaha. maxaa qabtiin iyo maxaa idin gaaray lama oranin. gudoomiyihii degmada oo degmada jooga iyo xubnihiisii ku-xigeenka iyo heer gobol oo degmada jooga wax isbitaalka ku soo booqdana ma jiro. haye intaa markay dhacday maanta waa la soo qaaday. hadda waxay yaaleen magaalada markaa xamara la keenay, diyaa la geeyey, isboorti badana laga qoray. warqadooyinkiina waa wataan oo isbitaalka xagga uu ku diiwaangeliyey iyo rasaastadii iyo dhibkii uu sida uu kala yahay wixii oo dhan oo lasoo qoran waa wataan. booliiska degmada markan way soo qoreen warqad, way noo soo direen, kulli hadda waa haynaa. waa garta marka waxyaabihii ama kaaga marka dhacdadu waa dhacday. nimana dambiilayaala galeen, ceerta ciidanka ma wada lahaa. laakiin waxaa kasii fool xun maamulkii degmada oo degmadii dhex jooga iyo gobolkii xubno kamid ay degmada joogaan ay dhaawacii intay u dul tagaan ay booga waayaan. ilaa hadda intaasa la yaabanahay. waxaan rabaa gudoomiye inaad noo sharaxdid arrintan oo aad tiri 7 bishaan dhacday, gabdhaha la kufsaday iyo tirada lagu kufsaday iyo sida lagu xaqiijiyaba. tirada waa xaqeen gabdhaha la kufsaday 2 waaye. gabdhuhu 3 gabar ay ahaayeen. mid ilaahay waa badbaadiyey, banaanka lagu reebay. 2 wadada laga leexsaday. gabadha yar 13 jirka ah iyo islaantan xoogaa maratay oo ayadana 30 meelaha jirto oo rag qabo lafteeda uur leh sida la ii sheegay. sidaasay ahayd. marka tiradu la kufsaday waa 2 gabar. waxaa kufsadeen waa 2 askari oo ka tirsan ciidanka hadda Jannaale joogo. ciidan hadduu meel joogo lama waaye maaragtay inay wax farxumeeyaan. ciidanku maahan annagu ma ka wadnana ciidanka xambaaray. ciidanku waa fiican yahay, hoggaankan waa fiican, laakiin siyaasada ka geystay aan waxaan leenahay sharciga islaamka in la waafajiyo. kufsiga sidiisugu wuxuu meel ka dhac ku yahay islaamnimada, wuxuu meel ka dhac ku yahay diinta islaamka sharafkeeda. marka waxaan rabnaa anagu arrinta aan u hadleena waxay tahay nimanka noocaasa oo sharafta ciidankana ku dheeraayo, sharafta maaquulka iyo dowladnimadana ku ciyaaraayo in waxay leeyihiin la marsiyo. waayo marka gabadha saddexaad aad tiri ilaahay wuu badbaadiyey, banaanka looga tagay, ma ayaga banaanka uga tagay mise ayada suurto gelisay inaanay qaybta ka gelin oo ay nafteeda la baxsato? maya ma baxsanin. nin kala banaanka ku hayay, ilaahay baa badbaadiyey. nin kala ayada banaanka ku reebay, wiil kale askari kala waardiin ka saarnaa banaanka lagu hayay. waa gabadha hadda nimankaas tilmaantay, sheegtay, wajiyadoodana sheegtay. ayaga waa la qabtay sidaas igu maqaala, gacanta ciidamada ay ku jiraan. marka insha allahu in sharci la waafajiyaan aad iyo aad u rajaynayaan. mise jir wey gabadhaas? ya gabadha badbaaday da'deeda waa imisa? waa qof adeerka 7 waaye. qof 7 waaye. mar wala qaw waayadana ilaaha badbaadiyey oo nin baa waardi ka hayay. askarta wax ku sutay 3 ay ahaayeen. 2 dambiga gashay, ninkaan gabadhu banaanka ku hayay, 2daana wadada laga leexsaday. marka iiga waran xaaladda gabadhan 12 jirka ama 13 jirka ah iyo hooyada kale uurka lahayd oo ciidamadu ay dhibaateeyeen, noloshooda waa sidee? annagu reertidii iyo kiiskii iyo wixii ay soo qoreen isbitaalkii marka waa haynaa. gabadha 13 jirka aad bay u dhiban tahay. qofta kale waa iska normal. waa qof awalba rag baray waaye, laakiin inkastoo dambi laga galay
qofka yar ilaa hadda ay weli dhiban tahay meeshii waa la dilaaciyey xoogaa loo isticmaalay 4 haweenay waxay kusoo jiifteen ay ku jireen maxay ahayd 5 haween isbitaalka Marko. gudoomiye hore ee magaalada Marka Xasan Cumar Macalim ayuu kaasiya oo ka hadlayay kufsi ka dhacay magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellada Hoose oo toddobaadyo ka hor ay la wareegeen ciidamada militariga Soomaaliya waxaana kufsigaas lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka. dhowaan ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sidaan oo kale waxaa loogu kufsaday 2 dumar waxay ahaayeen saqiiro 3 sano jir iyo 4 sano jir waxaana habeenno lagu haystay magaalada meel duleedkeeda ah kuwaas oo weli lagu dabiibayo isbitaal ku yaala Muqdisho xaaladoodan ilaa waqtigan dhaqaatiirtu ay sheegayaan inay tahay mid aan wanaagsaneyn. waxaan isku daynay inaan helno wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliska militariga si aan arrintan wax uga weydiino laakiin ma aysan suurto gelin in ay wicitaanadayna ka jawaabaan qaarkoodna waan heli weynay.